السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا AMA Associates. maanta waxaan ka hadlaynaa maareynta hantida dadweynaha. maareynta hantida dadweynaha gaar ahaan goorta maamulka loo daadajiyo heer gobol waxaa aasaasi u ah 7 qodob. muwaadin ii soo jawaab, maxaad kala socotaa maareynta hantida degmada iyo gobolka aad ku nooshahay? haddaba aynu gudagalno qodobadaas. qodobka koowaad waa budgeting odoros. waa in si daahfuran loo dhaqangeliyaa habraac odoros oo bulshadu raadraaci karto. habraacaas oo waafaqsan ahdaafta hortabinta u leh deegaankaas, gobolkaas ama waddanka oo idil. odorosku waxaa ka mid ah revenue estimation, in qiyaas dhab ah loo helo dakhliga gobolka soo galaya. expenditure, qarashaadka ku baxaya howlaha bulshada loogu khidmaynayo. planning, qorshayaasha howlaha la doonayo in la qabto. monitoring, nidaamka kormeerka ee lagu xaqiijiyo fulinta howsha. performance, waxqabadkoo la barbar dhigo ahdaaftii la qorsheeyey. qodobka labaad, revenue generation, kobcinta dakhliga. waa in la abuuraa sources, ilo iyo farsamooyin dakhliga lagu kobcin karo si looga kaaftoomo in wax laga sugo hal ilo qura. ilaha dhaqaale waxaa ka mid ah income tax system, nidaamka dakhliga canshuuraha. waxaa kaloo ka mid ah local authority fees, oo ah dakhliga deegaanka ka soo gala khidmadaha laga helo hantida dadweynaha sida public parks fees, khidmada beeraha dalxiiska, public library fees, khidmada maktabadaha, parking penalties, ganaaxa gawaarida wadada sharci darrada u yaala, grants, deeqaha laga helo dowladda dhexe iyo NGOs ururada aan dowliga ahayn. waxaa kaloo muhiima dakhliga ka soo xarooda public private partnerships, mashaariicda si wada jira u fuliyaan maamulka deegaanka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. qodobka saddexaad, expenditure management, xakamaynta qarashka. waa in hortabin la siiyaa qarashaadka ku baxaya ahdaafta waafaqsan qorshaha u yaala horumarinta gobolka, lana dardargeliyaa adeeg wanaagga dowladda. waa in la dhaqangeliyaa procurement system for products and services, nidaam agab ama adeeg iibsi oo efficient wax ku ool ah. goorta dowladdu ay bulshadu u fidinayso contracts, qandaraasyo, si loo dhimo hantida bulshada ka baxaysa loona xaqiijiyo aragtida loo yaqaano value for money, kharash yar ku bedelo qiimo badan. waa in la kor joogteeyaa kharashaadka si looga kaaftoomo kharashaadkoo xadka dhaafa. qodobka afraad, debt management. waa in deymaha deegaanka uu qabo loo maareeyaa si mas'uuliyad leh. waa in deymaha bulshada magacooda lagu soo qaadayo ay ahaataa mid waafaqsan strategic guidelines, tubaha waafaqsan istiraatiijiyadda loo dejiyay deynbaxa, taasoo tilmaamaysa in deyn kastoo la soo qaado lagu maalgeliyo mashaariic waxtar iyo faa'iido dhaqaale oo la taaban karo bulshada u leh. waa in la diyaariyaa istiraatiijiyad lagu dhimayo culayska dhaqaale sida interest dulsaarka ee imanaya muddada deynta la qabo, lana yareeyo bankruptcy risks, khataraha keeni kara musallafidda ama kicidda dhaqaalaha deegaanka. qodobka shanaad, financial reporting. waa inuu jiraa nidaam bulshada lagu soo gaarsiiyo warbixin maaliyadeed oo ku saabsan waxqabadka gobolka. bayaanadaas oo si fudud looga heli karo barta internetka si uu muwaadinku meel allaale uu joogo ula socdo dhaqaalaha deegaankiisa. warbixintu waa inay tayaysan tahay, waqti habboon lagu soo gaarsiiyo bulshada. wargelintu waa inay sare u qaadaa isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta dowladda iyo bulshadeeda ka dhaxaysa, soona bandhigtaa bayaanada maaliyadeed iyo xiriirka dowladda iyo bulshadeeda u dhaxeeya. qodobka lixaad, fiscal discipline, ilaalinta qorshe xisaabeedka dowladda iyadoo loo hoggaansamayo budgetary constraints, hayndaabka qorshaha loo diyaariyey sanad, lagana fogaanayo deficit financing, hoosu dhac dhaqaale, iyo in la dhigto kayd lagu maareyn karo caqabadaha filanwaaga ku yimaada. dhanka kale waa in la diyaariyaa control ama xakamayn looga hortegi karo fraud, khiyaanada, corruption, musuqa iyo si xun u isticmaalka hantida bulshada. qodobka toddobaad, waa in dowladdu ay maalgelisaa kobcinta garaadka maaliyadeed ee xirfadlayaasha ka shaqaynaya qaybta maaliyadda iyo saraakiisha kale ee ka shaqeeya waaxyaha kala duwan ee bulshada, iyadoo loo fidinayo tababaro ku saabsan maareynta maaliyadda, anshaxa, u khidmaynta bulshada, isticmaalka habraacyada iyo nidaamyada fududeynaya maareynta maaliyadda,
iyo u hoggaansanaanta shuruucda gobolka, dowladda iyo dunidaba. Qodobka 8aad stakeholder engagement, xidhiidhka u dhexeeya deegaanka iyo danleyda kala duwan ay bulshadu ka kooban tahay. Golaha deegaanka iyo dowladda dhexeba waxaa waajib ku ah inay diyaariyaan shaqaale si wanaagsan ula macaamilo muwaadiniinta iyo ururada bulshada si ay u helaan falcelin bulsho oo muujinaysa dareen farxadeed. Dowladdu waa inay dhiirigelisaa daahfurnaan, soo dhaweyn bulsho iyo inay marnaba ka gabanaynin isla xisaabtanka looga fadhiyo. Maamulku waa inuu bulshada ka qaybgeliyaa doodaha masiiriga, nidaam dejinta iyo wargelinada qorshayaasha sanadlaha. Haddii aan soo koobo, maareynta maaliyadda dadweynaha waxay aasaasi u tahay horumar iyo thaqaafo bulshadeed. Deegaan kasta haddii uu la yimaado mabaadi'da iyo dhaqamada aan ku soo koobnay 8 qodob, bulshaduna ay ku baraarugsan yihiin qaybna ka qaataan hirgelinta isla xisaabtanka, waxaa si mas'uuliyad iyo habsami leh loo ilaalin doonaa hantida bulshada, waxaana abuurmaya horumar dhaqaale. Bulshaduna waxay heli doonaan adeegyada ay u baahi qabaan, taasoo sare u qaadaysa ladnaanta muwaadinka oo ah hadafka ugu weyn ee nidaam dawli ah yeesho.